kulantaha bonda wadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka NTN oo xiliyadan oo kala aad ka daawataan telefishinka NTN qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku baaqay howlgal ka dhana al-shabaab kulan looga hadlayay xoojinta nabadda gobolka Mudug oo lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa howlgalka AMISOM ee lagu magacaabo Artemis oo howlgal qorsheysan ka fuliyay gobolka Shabeellada Hoose مسؤولين كترسن جبلان waxa ay ku baxeen colaad ka taagan deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha hore ee degmada Afgooy khilaaf ayaa soo kala dhex galay gudoomiyahaas iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose qodobada ka baxsan Soomaalida ee dibadda aad ku daawan doontaan wararka NTN TV-na waxa kamid ah heshiiska xabad joojinta koobaad Yemen oo mar kale dib loo cusboonaysiiyay dagaalamayaal loo malaynayo in al-shabaab ka tirsan yihiin oo weeraro culus ka geysay gudaha Kenya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka TV-ga NTN ee ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan hagaag taariikhdu waxa ay ku aasaysan tahay 3 bisha June ee sanada 2022 qodobadii aad hore ku soo daawateen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay munaasabad soo dhaweynayd oo ka dhacday madaxda galmudug ee Dhuusamareeb ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgal ka dhan al-shabaab madaxweynaha ayaa sheegay in caqabada ugu weyn ee dib u dhiska nolosha shacabka Soomaaliyeed ay tahay amni darrada iyo falalka qalqalgelinta ah oo ay shabaab ka wadaan gudaha ama deegaanada galmudug muwaadinka Soomaaliyeed caawa gurigiisa si nabad ah ugu magamo waxaan rabnaa in uu si nabad ugu gamo marka uu safrayo ama wadada uu marayana wuxuu cabsi ka qabaa in miina ay la qaraxdo hooyada Soomaaliyeed ma aaminsana in caruurteedu ay soo nabad noqonayaan markii ay baxaan waxaan rabnaa in ay niyadoodu wanaagsanaato kuna gamaan in niyad-sami iyo nabad ay ku soo noqonayaan hadii alla yiraaho ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan rabnaa inay galmudug bilowdo mashruuca la dagaalanka nabadiidka iyo iska xoreynta al-shabaab kadibna dadka kale ay ku daydaan ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa kula dardaarmay madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug inay ka digtoonaadaan khilaafka qulubtoodana isku furaan gacmaha isqabsadaan si horumar loo gaaro loogana adkaado cadawga dalka ku soo duulay intaasi ayuu sii raaciyay warkiisa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabadii soo dhaweynta ahayd ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb kulankan amniga looga hadlayay ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ee maamulada Galmudug iyo Puntland waxaana kulankan intii uu socday looga hadlay sidii loo hirgelin lahaa ama sidii loo xoojin lahaa nabadda gobolka Mudug oo sanadihii la soo dhaafay ahayd mid si weyn loogu naalooday magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug xilliyadii u dambeeyay iyo sanadihii u dambeeyay kama jirin wax dhibaato ah waxaana ciidamada labada dhinac oo iskaashanaya ciidamada dawladda Soomaaliya isku dhafka ah iyo ciidamada booliska ee labada dhinacba ay aad uga shaqeynayaan xaqiijinta ammaanka gobolka Mudug waxa kulankaani looga arrinsaday sidii loo sii taabagelin lahaa ka hortagga khilaafaadka dhexmara dadka xoolo dhaqatada ah oo inta badan colaadda gobolka Mudug ay ka soo cusboonaato ama ka dhalato dadka ood wadaagta ah wararka ka imaanaya magaalada Barawe caasimadda maamulka koonfur galbeed ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee ATMIS dawladda aan baraysay u dhow magaalada Barawe degmada Barawe ay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo ay kula dagaalamayeen al-shabaab ciidamada dawladda ee howlgalka qaybta ka ahaa ayaa waxa ay ka tirsanayeen ururka 25aad ee guutada 6aad waxaana tuulada howlgalka laga fuliyay dhawaan ciidamada dawladda lagu eegtay qarax qasaaro dhimasho iyo dhaawac geystay gaashaan la sare Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale oo la hadlay TV-ga NTN hogaaminayayna howlgalkaasi ayaa sheegay in ujeedka uu ahaa baaritaano lagu sameeyay guriga ku yaala tuulada Ambaraysa oo 5 kiiloomitir u jirta degmada Barawe kuwaasi oo la doonayay in la xaqiijiyo amniga baaritaankuna uu salka ku hayay si guriyahaasi loo hubin lahaa cid degan maruu ka hadlayay arrintaasi wuxuu yiri ujeedka howlgalkani wuxuu ahaa ka hortagga weerarada al-shabaab burcadda iyo dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya ayuu yiri gaashaan la sare Cabdiraxmaan Cilmi
mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ATMIS oo NTV la hadlay ayaa sheegay in halkaasi u tageen badbaadinta dadka waxa uuna ka codsaday dadka deegaanku inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. howlgalka ciidamada dawladda iyo kuwa ATMIS ay ka sameeyeen duleedka degmada Baraawe ayaa daba socday kadib falal amni darro iyo weeraro ku soo kordhay deegaano u dhow degmada Baraawe oo caasimad rasmi ah u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ayaa awood weyn ku leh gobolka Shabeellada Hoose waxaana lagu tiriyaa inay ka mid tahay deegaanada ay ku sugan yihiin madaxdooda iyo ciidamada ugu badan. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa ku baxay xalinta xiisad dagaal oo ka taagnayd deegaanka Dhiif ee gobolka Jubbada Hoose taasi oo u dhaxaysay laba beelood oo wada dagaalkaasi. xubnaha xildhibaanada ah ayaa lagu wadaa inay halkaasi ka fidiyaan gogol nabadeed oo u dhaxaysa labada beelood oo halkaasi colaad ku dhex martay. colaadan ayaa salka ku haysa aana qabiil taasi oo la xiriirta 3 qof oo rayid ah oo isku qoys ah oo maleeshiyad hubeysan ay ku dileen deegaanka Dhiif kuwaasi oo kolkii dambe iskaga baxsaday halkaasi. waxayna weli ciidamada ammaanku ku daba jiraan dadkii dilkaasi geystay iyagoo xildhibaanadana ay gundhig u yihiin soo afjaridda colaadda labadaasi beelood oo walaalaha ah. wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaqo joojin ku sameysay gudoomiyihii hore ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Abuukar Maxamed Cumar isla markaasna soo baahisay wareegta ay shaqada uga joojisay. sababta shaqo joojinta gudoomiyaha ayaa waxaa lagu sheegay inuu ku kacay amar diido iyo ku takrifil awoodeed isla markaasna uu waday iska horkeenida maamulka. waxaa maalmahan taagnaa khilaaf u dhaxeeya gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo midka degmada Afgooye ee shaqada laga joojiyay kaasi oo salka ku hayay maamulka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay deegaanka Jasiira ee gobolka Shabeellada Hoose. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhinacyada ku lugta leh dagaalka Yemen in ay ku heshiiyaan dib u soo cusboonaysiinta xabadda joojinta dalkaasi laga sameeyay. daalada dib loogu soo cusboonaysiinayo xabad joojinta ayaa rajo gelinaysa dadweynaha dalkaasi ku nool oo 9 sano ee u dambeeyay ku dhex noolaa dagaalo sokeeye colaado qalalaaso duqeymo cirka ah iyo weeraro kale. xabad joojinta u dhaxaysa dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen iyo mucaaradka Xuutiyiinta ee ay taageerto dawladda dalkaasi Iiraan ayaa labadii bishan Abriil ee sanadkaani la sameeyay inkastoo marar kala duwan dhinaca kale uu ku eedeeyay ku xadgudubka heshiiska xabad joojinta ah. dib u soo cusboonaynta xabad joojinta Yemen ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay ku ekayd 3 bishani xabad joojintii hore. qaramada midoobay waxay soo dhaweysay dib u soo cusboonaysiinta xabad joojinta mar kale waxayna natiijo weyn ka walaynaysaa in ay labada dhinac hirgeliyaan xabad joojintaasi. ciidamada ammaanka Kenya ayaa howlgallo ballaaran ka wada Mandera, Wajeer, Lamu iyo qaybo kale oo kadib weeraro xiga halkaasi ay ka dhaceen. rag hubeysan ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Kenya oo marayay wadada isku xirta Buura iyo Gaarisa taasi oo ka socdo dhismaha wado halkaasi laga wado sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka deegaanadaasi. sidoo kale raggan hubeysan ayaa weerar kale ku qaaday gaari xamuulka qaada ah oo ay la socdeen shaqaale Shiineys ah oo wada dhismaha wadada isku xirta Gaarisa iyo Buuri ee dalka Kenya. raggan ayaa halkaasi ku gubay gaariga xamuulka ah waxaase weerarka ka badbaaday shaqaalihii Shiineyska ahaa iyaga iyo ciidamo ilaalinayay ee halkaasi ka baxsadeen. saraakiisha ammaanka Kenya ayaa sheegay inay weeraradan isdaba socday ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidanka Kenya isla markaana la geeyay goobaha caafimaadka magaalada Gaarisa. ragga weerarka geystay oo aan ilaa iyo hadda tiradooda la shaacin lana garanaynin cidda rasmiga ah ama kooxda rasmiga ay ka tirsan yihiin ayaa loo maleynayaa inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo inta badan weerar gaadma ah ka geystay gudaha dalkaasi Kenya. NTN TV